السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله قالق سود هذا ما شاء الله تبارك الله ولا شيء نستحي جنا الله إن شاء الله إذن سود وينيسه بإذن الله الكريم ولا الله قالق سود هذا هذا نوع صبته وحن قاعد سنة نصيحة شمال إن شاء الله إن النصار تسبسكرايب channel كه بإذن الله الكريم لايك ته شيرك إن شاء الله بإذن الله الكريم هذه أدب ولا الله قالق إذن سود وينيا أنت النوع صب وإذن سود وينيا أنت نهرنا نلسي جوان لنا هاي إن شاء الله تعالى وموضوعنا كهل جرنايا ما رجلين تبلشة أما محيالها كدع بلشة إن ماركتي مرقول بكهل جري إن شاء الله ما أنت وحن كهل ولا لا قالقة إن أرين ماركتي هذه تنصوم إنه بدن إن خاصة دمرك أما هوينك إن رجل لفتركود ولا جاي قيب إني ماركتي سدايهين لكن kuma badna waxa ku badan ama kaga badan dumarka marka insha Allah bidnillahi alkareem walaalayga qaaliga waxa weeyaan waxa la yiraahdo ku mashquulida qofka dadka kale hadaad ku mashquusho qof kale oo bini aadana waxay kugu keenaysaa dhibaato aakhiri adduunba oo maaragtay aad iyo aad u xun marka waxyaalo badan bay noqon kartaa inaad mashquulka ay yani dhinacyo badan bay noqon kartaa inaad qofkan mashquulka aad ku noqoto xaasid oo xasado noloshiisa oo aad maaragtay aadan jeclayn inuu maaragtay nolosha uu ku noolyahay uu ku noolaado ama u fiicnaato ama u xumaato oo xasad iyo maaragtay masayr uu ku soo galo iyo inay maaragtay ay ka tahay inaad maaragtay iska maagayso qofkaas oo iska dhibaataynayso iska jeceshay inaad maaragtay dhibaatayso ama aad ku mashquusho ama aad wax ka sheegto aad iyo aad bay u xun tahay iska ilaaliyo wax ka sheega ama ku mashquulida bini aadanka kale hadaan dumarna aad iyo aad bay noogu badan tahay waxaad arkaysaa qof maanta oo dhan ruux weyn ama islaam weyn ama gabadh weyn oo yani qof weyn oo maaragtay ku mashquulsan ilmo yar oo dhalinyaro ah ku mashquulsan maanta oo dhan ka sheekeynaya tv ka sheekeynaya maanta dhan ilmaha yarka ah ee dhalinyarada ah wuxuu ku xun yahay ree hebel ilmahooda sidan weeyo ree hebel ilmihii baa sidan ka noqday heblaayo ilmaheeda noocan uu noqday wiilkeeda uu xiran yahay gabadheedii sidan bay noqotay yacnihii waxyaalo aan dhegtana u roonayn caqliga bini aadankana aan u roonayn haddii aad tahay qof ku mashquula dadka kale awlaadooda iyo noloshooda iyo ma aragtay adigana waxaa qeyrkaabaad ka hadhay adduunkana kaga hadhay aakharana kuma fiicna adduunkiina dee meeshaad adiga isku mashquuli lahaydeed enerjiga aad dadka kale gelinaysid aad adigu isgelin lahayd ayaad waxaad gelinaysaa qof kaleeto bini aadan oo adigoo kaleeto ah oo waxba aan ku dhaamin baad maanta oo dhan mashquul ku tahay nafsina way leedahayoo haddaad ku mashquusho qof kaloo bini aadana ilmihiisiiyo noloshiisiiyo isaga haddii aad ku mashquusho adigana waa lagugu mashquulahayaaye si middaa ogow haddaad ku mashquusho dadka kale ee maaragtay adduunkan ku noole ilaahay uu abuurtay adiga dadkan maada abuuranin adduunkan maadan keensanin adiga ma xisaabinaysid yacnihii waxba kaama gelin mashquulka aad yani dadka lagu mashquulahayo ama wax laga sheegahayo ama la dhibaataynhayo ama carabka lagu dhibaataynayo waa ceeb aakharana kuma fiicna adduunkana kuma fiicna yacnihii haddaad arrintaa ku sifowday oo maaragtay videogan kusoo gaadho ama aad dareemayso inaad dadka tahay ilmaha dadka ku mashquula dadka kale noloshooda ku mashquula yacnihii aan shaqo kala qabanin wax ka sheega aadamaha wax ka sheega dhalinyarada soo korayso wax ka sheega yacnihii qof ilaahay uu abuurtay halkaa ku nool ama meel degan inaad maanta oo dhan ku mashquusho wax ka sheegto ood maanta oo dhan wallahi maaldhood waxaa laii sheegay qiso aan la yaabay waxaan la yaabay baa laii sheegay gabadh baa tiri baa gabadh baan arkay gabadheedii oo yacnihii waa waxa dhacade waxay tiri baa waxaan arkay heblo gabadheedii oo nin la socdo markaasaa lagu yiri naa gabadhaas waa gabadh fiican ninna kumaad arkin beenta daayaha samayn wax noocaasa markaasay tiri baa video baan ka duubay markay ninka la socotay oo tareen baan wada saarnayn camal kadibna sawirkii bay dadka tustay baa la yiri warna gabadhaad sheegaysa maba ehe
miyaad waalan tahay waaba qof kaleete marka halkaas inaga gaadhay Soomaali hadaan nahay mashquulka aan ku mashquulayno qof kale oo bini aadan wallahi horumar ma gaadhayno inta aan bini aadan kala saaranahay ama aan ku mashquulsanahay hadii waxa la maroodiga takarta saaran ma arko takalu arkaa ku mashquul adiga ceebahaada ku mashquul adduunyadaada kale ku mashquul gurigaada ku mashquul ilmahaada ku mashquul reerkaada ku mashquul aakhiradaada yacni ha ku mashquulin war enerjigaada iyo waqtigaada iyo noloshaada iyo maskaxdaada maxaad aadama kale inaad wax uga sheegto u gelinaysaa maxaa adiga kaa galay inaad dad kale adduunkan joogo ku mashquusho wallahi waa wuxun weeyaan waxa ugu xun cudurka ugu xun ee qofka bini aadanka ku dhaca weey inuu dad kale ku mashquulo inuu ilmo kale wax ka sheego inuu reer kale wax ka sheego inay gabadh kale walaasheeda wax ka sheegto inay maanta dhan yacni wax aan loo dirsanin ka sheekayso ama ay bini aadan ilaahigii abuuray adduunyada ku soo deystay sida iyadoo ah in ama asagoo ah inuu maanta dhan qofka uu daba socdo ama uu maanta dhan yacni toosh u haysta afar qaada oo maanta dhan halkan la sameeyay halkan la marahay waxana la sameeyay reebel ma ogtahay waxa ku dhacay heblaaye waxa ku dhacay malagaaga sheekay yacni waxa soo dhan waxa la yiraahdaa xanuun ku dhaca qofka nafsiyan waa xanuun uunan ogeyn ee isaga qaba yacni marka uu qofku xanuunsan yahay waxa ku dhacaysa oo yacni uu dareemayo asaga dhibaato haysata ama dhibaato laga yaabo inay ku soo dhacday ama xumaato loo soo geystay ama wax asaga yacni ku soo dhacday oo calooshiisa uurkiisa uu ka dareemayo ba waxa laga yaabaa inuu qofka u raadiyo qof kaleeto oo bini aadan ceebihiisa iyo inuu sharafta ka dilo ama inuu dhibaateeyo carabkiisa ku dhibaateeyo ama uu yacni wuxuuna qofka u qalmin inuu la tago isagoo iska baabi'in haya waxa uu isagu dareemayo ama waxa uu isagu ku sifaysan yahay isagoo raba meel uu kaga cararo qofkaas inuu raadsado laakiin waxaan ku sheegayaa qofka yacni arrimaha dadka ku sifaysan dadka ku mashquula maanta qof bini aadan oo adigi aadan yacni laga yaabo inuu ban asagu ku ogeyn oo noloshiisa kale adduunyada iyo aakhiradiisa iska maamulanayo horta dadkaas waxaad u beeraysaa beeraha jannada kamid ah oo xasanaadkaadi baad yaad maanta dhan aad qofka ku mashquusho ama aad wax ka sheegto ama maanta aad daba gurto dadkaas xasanaadka adiga aad lahayd horta ruuxa qaatay waxba uma dhimin adigana qalbigaadi iyo maskaxdaadi way ka dhiman oo qofka bini aadanka markuu qof kala maanta dhan dad kale oo aadama ah waxa laga yaabaa hal qof inuu magaalada dhan lagu nool yahay baa laga yaabaa qofkaas hal qof baseeta inuu focus ka saaro ma inuu magaaladaas oo dhan tiriyo wixii maanta isfuray ilmihii xabsi galay ilmo yar oo dhalinyaro oo laga yaabo inuu khalad yar sameeyay kii ma aragtay gabadhii yara yacni dhinac yara waxay santay yar ee dhalinyaro ah intay ilmaha u ducayn lahayd ay dhihi lahayd mustaqbalka waxa laga yaabaa in nafsiga adiga kugu dhaco iyay maanta dhan waxay magaalada waxa laga yaabaa magaalada inuu qofkaas uu toosh wato maxaa dhacay xagee wax ka dhacay xagee la isku furay xagee la isku dilay xagee ilma lagu xiray ma hebla gabadheedii xagee ka dhacday wiilkeedii baa la ahayn waayahan wiilkeedii xagee gabadha wiilkeedii xagee waan soo maqlay waxa la yiri wuu xiran yahay baa la yiri balaayo sameeyay baa la yiri daroogu gadahayay baa la yiri waxbuu dilay baa la yiri yacni maanta dhan waxa laga yaabaa qofka inaad isku meel degantiin ama adigu wuxuu sheegay aad war ka hayn bal magaalada dhan ee maanta dhan uu qofka ka sheekaynayo iyo dadka uu ku mashquulsan yahay iyo bini aadanka ilaahay saaray maxaa asaga dusha ka saaray had asaga maxaa enerjiga inta la eg inuu qof bini aadan galiyo saaray ama u keenay dhibaatada maxaa u keenay haddaad ku sifaysantahay arrintaas waa wax xun aakhiradaadu ma fiicno adduunkaada intaad nooshahayna kuma fiicna adduunka intaad joogtana dee qofku waa la ogaanayo sharaf kuma yeelanaysa aadamaha aad la nooshahay agtiisa sharaf kuma yeelanaysid aakhirana dee tii ilaahay ciqaabtiisiibaa kuu taala marka insha allah biidnillahi alkariim walaalahayga qaaliga videoga yarka ah ayaan maanta insha allah inoo soo diyaariyey yacni waxa bulshada ka dhexdhaca yacni intaa yartee kooban baa yacni intaa kooban ka badan wax ka badan baa dhaca oo maanta oo dhan yacni wax fiican maaha
wax fiican maaha adduunyadan waa laga koray waxaasoo dhan war balaayo iyo yacnihii wax lagu mashquulo iyo qof laga masayro iyo wax la daba ordo iyo waxaasoo dhan wax kaaga badan baa adduunkan ilaahay dhigay waxaad ku mashquushaa ilaahay dhigay oo tif ah noloshaada iyo naftaada ku mashquul ilaahay ka cabsada biidni illaahi albaari walaalahayga qaaliga ah video yarkan maanta inala wadaagahayay wax kala ma wado haddaad arrintaa ku sifaysantahay iska daa walaalahayga qaaliga haddaad wax yar ka faa'iiday